السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فائدooyinka caafimaadka ee laga helo waa maxay faa'iidada caafimaad ee laga helo koostada? Koostada waa caleen cagaaran oo aad loogu isticmaalo meelo badan oo adduunka ka mid ah. Waxaa siyaabo kala duwan loogu isticmaalaa sida cunto ahaan ama cabitaan ahaan. Nafaqada koostada waa qudaar ay ka buuxaan maadooyin jirka waxtar u leh. waxaana ka mid ah zinc, borotiin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, vitamin B2, iron, magnesium, potassium, copper iyo calcium. koostada waxaa aad ugu badan maadooyinka jirka ka saara sunta oo loo yaqaano antioxidants. waxaa kaloo jira maado loo yaqaano folate taasoo la aaminsan yahay inay faa'iido caafimaad u leedahay wadnaha iyo xididada dhiigga qaada. maadada magnesiumka ee laga helo koostada waxay ka qayb qaadataa koontaroolidda cadaadiska dhiigga. koostada waxaa kaloo ku badan maadooyinka la dhaho lutein oo indhaha faa'iido ugu jirto, kuwaasoo siyaadiyo awood aragga. cilmi-baaris la sameeyey ayaa lagu sheegay in koostadu ay kobciso xusuusaha, shaqada maskaxda iyo feejignaanta. nafaqooyinka muhiimka ah ee ku jira koostada sida vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, calcium iyo omega 3 waxay u fiican yihiin caafimaadka timaha. tusaale ahaan, iron waxay caawisaa inay oksijiinta dhiigga gaarto. ugu dambeyntii, koostada waxay u wanaagsan tahay dheefshiidka. ay kaloo u roon tahay dadka qaba gaaska.